Bismillaahi Raxmaani Raxiim habeen wanaagsan waa 17 Juun sanada 2019 qodobada warka habeenimo ee janalka gunta wararkana waxaa kamid ah calanka Soomaaliya oo laga taagay Soomaaliland iyo xiisad ka dhalatay Mareykanka oo xafiis cusub ka furtay Muqdisho iyo Khayre oo xog bixiyay sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay dawladda Soomaaliland oo sii deysay xildhibaan uga fayzday 18 May waqtiga la dhageysanay raafaanka dacwada kiiska Cashe Ilyas oo la shaaciyay xildhibaanada golaha shacabka oo doodada ka yeeshay sharciga iibka qaranka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo gaaray dalka Norway iyo bukaano looga shakisan yahay cudurka Ebola oo lagu karantiilay dalka Kenya intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweyn warka habeenimo ee janalka gunta wararka markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga iyo faahfaahsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar janalkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya xiisad ka dhalatay calanka Soomaaliya oo laga taagay Somaliland ciidamada maamulka Somaliland ayaa saacadihii la soo dhaafay dad shacab ku rasaasay deegaanka Damale Xagare ee hoos tagta degmada Ceelgaabo ee gobolka Sanaag shaqaqada ayaa ka dhalatay kadib markii dadka deegaanka ay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka taageen goob fagaaraha oo ku taala deegaankaasi saraakiisha Somaliland waxa ay sheegeen shacabka calanka taagay ee ku amreen in calankaasi dejiyaan balse ay ka biyadiideen arrintaasi taasina ay keentay inuu isku dhac maro shacabka iyo ciidanka rasaasay furan ciidamada maamulka Somaliland ayaa waxa ku dhaawacmay dhowr qof oo rayid ah kuwaas oo kamid ahaa dadkii deegaanka Damale Xagare ee gobolka Sanaag sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku darayeen in xiisad ay ka dhalatay arrintaasi haatan ka taagan tahay qaybo kamid ah gobolka Sanaag ma jirto wali war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland oo ku aadan dhacdadan dhalisay xiisadda deegaanada Somaliland ayaa laga ogoleen calanka Soomaaliya oo loo arko inay tahay dambi qaran waxaana ahayd dhawaan markii Cabdiraxmaan Maxamed Cali Aar oo lagu xiray magaalada Hargeysa kadib markii uu ku soo libistay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa xafiis cusub ka furatay magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka ayaa maanta waxay xafiis cusub ka furatay Muqdisho kadib munaasabad ka dhacday xarunta Xalane xafiiska gargaarka u qaabilsan Mareykanka ee USAID ayaa ku dhawaad 30 sano waxa uu xafiis ku lahaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana maanta loo soo guuriyay Muqdisho madaxa hay'adda USAID Mark Green ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in Soomaaliya ay markale ka furtaan xafiiskooda hay'adda USAID waxa uu sheegay in Soomaaliya hadda isbedel badan oo ka jiro gaar ahaan Muqdisho dhinacyada kala duwan madaxa waxa uu sheegay inay laba jibaari doonaan hawlaha caawimaadda ee Soomaaliya u fiirso dawladda Mareykanka wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay hadda ugu deeqeen lacag dhan 180 milyan oo dollar ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in hay'adda USAID ay 30 sano kadib Muqdisho xarun ku yeelato waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumadii aan kugu casuumay inaad na soo booqato markii aan kuugu imid Washington waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in hay'adda gargaarka Mareykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay inaad casuumadina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toos ah ugu gargaartaan waa idinkaga mahad celinaya sidii markaan Washington imidna aan ku arkay haddana aan ku arko xiriirka dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meesha ugu wanaagsaneed taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay 2 sano la soo dhaafay iyo dib u habeynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadno waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantiin dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahad celinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samayseen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad dalkan ku sameynaysaan ayaan iyagana ugu baaqayaa welcome Muqdisho sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya sargaalkan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa lagu magacaabaa Ibrahim Manuur Cismaan waxa uu isku soo dhiibay maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Baay sargaalkan ayaa la sheegay in muddo 9 sano oo kamid ahaa dagaalyahanada ururka Al-Shabaab isagoo hogaamin jiray dagaalo kala duwan oo lagu soo qaaday degmada Diinsoor iyo deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed taliyaha ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Shiine Mayo Aadan iyo gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay Ibrahim Maxamed Nuur Dhiigo ayaa si wadajir ah u sheegay in xiriir ay la sameeyeen sargaalkan isla markaana ay soo dhaweynayaan Ibrahim Manuur Cismaan ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay cafiyaan isagoo sheegay inuu ka tanaasulay falkii uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab si kastaba wali dhankooda wax war ah kama soo bixin Al-Shabaab oo ku aadan sargaalkan la sheegay inuu ka soo goostay
maamulka degmada Dinsoor ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ragga ka soo baxa Al-Shabaab. Somaliland ayaa xabsiga ka sii deysay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo muddo ka badan bil ku xirnaa magaalada Hargeysa. Xildhibaanka ayaa la xiray kadib markii maalintii 18 May ee Somaliland u calaameystay gooni sutaageeda uu ku sheegay inay tahay maalin ay leeyihiin beelo gaar ah halka Somaliland looga aqoonsan yahay maalinta xorriyadda. xildhibaanka ayaa sheegay in beelaha Somaliland aysan u dhameyn maalinta 18 May isagoo intaas raaciyay inay ka qayb galaynin. xildhibaan Dhakool ayaa dhowr jeer laga dalbaday muddadii uu xirnaa inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaasi laakiin xildhibaanka ayaa iska indhatiray hadalkaasi. wararka la helay waxa ay sheegayaan sii deynta xildhibaan Dhakool ay timid kadib markii beesha uu ka soo jeedo ay raaligelin ka bixisay hadalkii xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool uu ku sheegay in 18 May ay tahay maalin beel gaar ah ay leedahay. maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal waxa ay sheegeen raggii ka dambeeyay kufsiga Caashe Ilyas inay racfaan ka qaateen xukun dil ah hore uga dhacay. xeerlaaliye ku-xigeenka Puntland oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay racfaan qaateen raggii lagu eedeeyay dilka Caashe Ilyas waxa uu sheegay in maxkamadda soo taagi doono maalinta Sabtida ah ee soo socota. maanta taariikhdu tahay 17 Juun 2019 xafiiska xeerlaalinta wuxuu la wadaagayaa saxaafadda in dadweynaha uu sheego in kiiskii Caaisha ee maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal ay ku xukuntay dilka saddexda eedeysan oo kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdishakuur Maxamed Dige, Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dilka ay ku xukuntay. xukunkaas oo ay racfaan ka qaateen saddexda xukumane qareenadooda. maanta ay taariikhdu tahay 17 bisha 2019 waxaa soo gaaray xafiiska xeerlaalinta guud qoraal ah inay mudeysay kiiskii ay racfaansanaha ka ahaayeen saddexda xukumane. xafiiska xeerlaalinta guudna uu ka yahay racfaansane inay mudeysay maalinta Sabtida ee soo socoto taariikhdu tahay 22 bisha 6 2019 sagaalka aroornimo. gobolka Nugaal xarunta gobolka Nugaal baana lagu galayaa insha Allah taala maadaama howlkaas uu weyn yahay kiis dadweynaha u furana uu yahay si shacab badan uga soo qayb galaan sida kii hore oo kalaan u qabanayna insha Allah taala. xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta waxay dood adag ka yeesheen sharciga iibka qaranka waxaana sharcigaasi horgeeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka ayaa sharcigaasi ka hor yimid. waxyaabaha majorka ma ah anu marka waxay ila tahay sharciyo kala loo yeelo oo aad u tiro badan wasaaradda ha cadayso sababtii ay hay'adda ama authority u dhisi weysahay inoo cadayso ama haddii kala sharcigan uma baahna akhrin labaade hay'adda hala soo dhiso shaqooyinkii hay'adda ahayd hay'ado kale ka shaqeeyo oo qandaraas bixintii iyo wixii ka shaqeeyo. anigu meeshaan waxaan ka shakisanahay inuu jiro cimri dheereys oo shaqadan qandaraas bixinta ah dad kale ay ka shaqeynayaan oo baarlamaankana lagu mashquulinayo inay ku mashquulaan maxaan ku dhahaa sharciga iyo reviewgiisa 6 bil iyo sanad kale ay qaadato doorashada ay timaado dawladda kale u gudubto ma yeelayno. waxaan rabnaa hay'addii in la dhiso sharciga yaan lagu mashquulin wuu diyaarsan yahay ka bacdina wixii ka soo baxa aan dab ka review garayna laakiin hadda yaana lagu mashquulin baarlamaanka sharci dhameystirin inuu mar labaad review gareeyo sharciyo kale oo qabyo aan loo yaalo. waa maasan sharciga baarlamaanka ansixiyo markuu naga tago ayadoon lagu shaqeynin haddana wasiirka yimaada hadduu soo bedelo oo mar kale haddana in oo dib sida haddana isaga ay la noqoto loogu siyaaqeeyo waxay noqonaysaa de sharciyada baarlamaanka ma dhaqan galayaan. marka muxuu u fuli waayay sharcigii hore si ka jilacsan intaa hadda wasiirku noogu sheegay baan u baahanahay in loo faahfaahiyo. waa maasantii. ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu gaaray dalka Norway halkaasina waxa uu kaga qayb galayaa shir muhiim ah oo dalkaasi ka dhacaya. wasiirka ayaa ka warbixiyay ujeedka uu u gaaray dalka Norway. safarkaygu wuxuu ka saabsan yahay ka soo qaybgal kulan sanadle ah oo ka dhaca magaalada Oslo dalka Norway oo maartay arrimaha adduunka ka taagan xasiloonida iyo nabadda iyo horumarka looga hadlo. dalal badan ayaa ka soo qayb galaya wasiirro badan ayaa ka soo qayb galaya wafdi kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna wasaarado kale ka socda ayaa imaanaya. marka kulankaas ayaan u yimid waxaa kaloo ka mid ah qorshahayga inaan la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway.
daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa warka habeenimo ee channelka gunta wararka fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena waad ku mahadsan tahay la socoshada iyo daawashada warkeena waana 17 June sanada 2019